maxay diyaaraduhu u sii daayaan qiic cad marka ay hawada ku socdaan? inta badan waxaan aragnaa marka ay diyaaraduhu cirka ku socdaan qiic cad oo dheer oo ay tuuraan, waxaana lagu magacaabaa qiicaas vol dumping ama shidaal daadin. haddaba waa maxay shidaal daadin? shidaal daadintu waa habka looga takhalusayo ama looga saarayo shidaalka xad-dhaafka ah ee ay diyaaraddu ku shaqaynayso, taas oo marka ay timaado xaalad degdeg ah ama la rabo in la isu dheelitiro culayska saaran diyaaradda marka ay joog hoose kusoo degayso si uusan dab uga kicin matoorka diyaaradda. waana nidaam loogu talagalay diyaaradaha oo ah in ay ku degto culays loogu talagalay. si kastaba ha noqotee, haddii ay diyaaraddu la kulanto cillad farsamo ama ay u baahato in si degdega cilladaasi lagu xalliyo xilliga ay duulimaadka ku jirto, ma heli doonto waqti ku filan. tani ayaa ka dhigan in shaqaalaha diyaaraddu ay si dhaqsile u daadiyaan culayska dheeriga ah ee diyaaradda saaran, waana arrin duuliye kasta oo diyaarad kaxaynaya ku dhacda xaaladan gaarka ah. sidaas darteed, duuliyaha waxaa u bannaan marka uu rabo inuu soo dego jawi hoose ka hor waqtiga la qorsheeyey ama haddii ay dhacdo xaalad degdega ah, in haanta shidaalka lagu daadiyo hawada ilaa ay gaarto heer ay diyaaradda ka fududaato culayska xad-dhaafka ah si ay si nabad leh dhulka ugu degto. caadi ahaan diyaaradaha waaweyn waxa ay leeyihiin awood ay ku daadiyaan ama ay ku tuuraan shidaalka si ay isaga yareeyaan culayska marka ay degayaan, waxayna daadiyaan kumanaan galool oo shidaal ah daqiiqado gudahood. waxaa jirta laba xaaladood oo degdega oo shidaalka lagu daadiyo. kow, marka ay diyaaraddu ku socoto xawaare xad-dhaaf ah oo ujeedkuna yahay in la cuno xaddi badan oo shidaal ah si ay diyaaraddu ugu degto culayska ama miisaanka la ogol yahay. labo, ka takhalusidda shidaalka xad-dhaafka ah iyada oo ku dhex daadinaysa hawada si ay miisaanka isaga yarayso. waxaana sharci ah marka ay daadinayso shidaalkaasi inaysan ku daadinin magaalooyinka korkooda si aysan u wasaqaynin hawada, dadkana aysan u dhibaatayn. haddii uu ku soo gaaray muuqaalkan like dheh, sidoo kale asxaabta waxaan idinka codsanaynaa inaad koobi linka noo taabataan.